xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xaaji Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ahna xildhibaanada ugu firfircoon xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada Berbera ahna gudoomiyaha guddi hoosaadka arrimaha bulshada oo in muddo ah ku maqnaa dalka dibadiisa ayaa maanta ka warbixiyay safarkiisaasi iyo waxyaalihii ugu soo qabsoomay xildhibaan Cabdirashiid Xaaji Yuusuf oo arrimahaasi ka hadlayana waxa ka mid ah hadaladiisii waxaan u mahadnaqayaa xogayaha fulinta dawladda hoose ee Stockholm Master Lars Radnik la yiraahdo meeyarka Stockholm golaha deegaanka ee Stockholm oo ka kooban 101 xildhibaan jaaliyadda Soomaaliland reer Sweden guud ahaan oo si fiican noo soo dhaweeyo qiimo leh oo qaarkood isaga kala yimid dalka Sweden oo dhan qaarkood 5 saacadood tareen ama gaadhi ay soo saarayeen waftigaygu wuxuu ka koobnaa 3 xubnood oo ka socda xukuumadda Soomaaliland ama dawladda Soomaaliland aniga iyo maariye ku-xigeenka dekedda Berbera iyo xogayihii dawladda hoose ee la bedelay Suhayb Maxamed Cali hawshan uu tagnay waxay ahayd program ka kooban 10 maalmood oo aanu la lahayn golaha deegaanka ama maamulka degmada Stockholm iyo dekedda la yiraahdo Royal Seaport waxaan u tagnay tababar ayuu ahaa aqoon isweydaarsi hawlaha khuseeya dekedda iyo hawlaha arrimaha bulshada waxbarashada waanu booqanay caafimaadkana waanu booqanay biyaha iyo leerkana waanu booqanay qaababka loo maamulo iyo qaabka loo horumariyay iyo cidda ka mas'uul ah gacanta ku haysa iyo sida loo xukumo runtii waxaan oran karaa wuxuu ahaa safar taariikhi ah waana markii ugu horeysay ee 3 mas'uul oo ka kooban degmada Berbera iyo gobolka Saaxil ay ku tagaan safar dibadeed safarkaygan wuxuu daba socday safarkii hore ee xogayaha Stockholm wafdi uu hogaamiyay reer Sweden ay inoogu yimaadeen Berbera iyo safar ka sii horeeyay oo maayarka magaalada Berbera Mr. Cabdishakuur uu 2 jeer ku tagay Sweden sanadkii 2014 iyo sanadkii 2015 golahan wuxuu kaga duwan yahay golihii hore ee deegaanka iyo golayaasha kale ee reer Soomaaliland wax qabad buu kaga duwan yahay midnimo kaga duwan yahay isku kalsooni buu kaga duwan yahay wada shaqayn buu kaga duwan maanaan arag anagu mooshin la wado mooshin kasta sharcigu dhigay xeer 23 7 xildhibaan baa soo saxeexaya 14 xildhibaan baan xilka ka qaadi kara laba jaran jaro weeyaan 7 xildhibaan oo warqad ay soo qoreen soo saxeexay oo golaha loo soo gudbiyana kuma aanan arag saxaafadana kuma aanan arag xildhibaaniin xogayaha hore fulinta dawladda hoose ee ka bedela safarka wada marnay saaxiib dhow ay ku ahaydeen shakhsi ahaan sidii dareen noocyo kugu sameynaysa xogayaha hore la bedelay xogayaha cusub ee ay keenayeen waa sunnaha dawladnimo isbedelku xogayahan hore waa la soo magacaabay wasiirka wasaaradda dakhliga soo magacaabay xogayaha cusubna waxa soo magacaabay isla wasiirkii markii hore Suhayb soo magacaabay baa imkan Cabdikariim soo magacaabay isbedelkuna waa sunnaha dawladnimo dimuqraadiyadna waynu qaadan wax dhibaatayna kuma jiraan xilliba waqtigeeda wallahi ku jirtay in lagu soo baxay xildhibaannimada golaha deegaanka marka ololeynaysa fagaarayaasha waxa ka sheegtay inaad wax ka bedeli doontaan qaab dhismeedka dawladda hoose oo grade ku jiro oo ay u egtay jeelmanuka ballanqaadkaasi muu fulin oo wali grade halkii waa taagan yahay maxaa arinta ka hornay waxaan ugu aaminsanahay inuu fulay security iyo nabadgelyadii xarunta dawladda hoosena in la sugay albaabka horena lagu kantaroolo si fiican ay u shaqeynaysan ugu aaminsanahay laakiin halkii xafiiska maayarka dadku grade ka qabsan jireen haddaad imika gasho oo aad shaqo u socoto si fiican u badgelaysaa grade cid haystaan ma jiro adigu ka xildhibaan ahaan muddo idin hadhay 2 sano golaha deegaanka waqtiga han ma leedahay ku rajo weyn tahay maayarka noqoto magaalada Berbera bis Cabdishakuur baad dhisaysaa golaha deegaanka ee Berbera markii la doortay 22 xubnood markaan u guuleysanay anigu waxaan ahaa xildhibaankii ugu horeeyay soo sharaxa maayarka magaalada Berbera hankaasina wuu igu jiraa laakiin markaad credit-ka ogolaato ninka wax qabta ayuu kaaguna imanaya imikana Cabdishakuur baan la shaqeynayaa han maayarnimo markii aan meesha imina waan lahaa imikana waan lahaa Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga ee Somali News TV magaalada Berbera.